markaan federaalka fiirshay waxaan ka mid ahaa carruurta dhalatay dowladda kaxaanka oo hal sana jirsatay muddadii ay dowladdaa jirtayna ku koray ku waxbartay guursaday aabbana ku noqday kadibna dadkii qaxay ee qurba joogta ka mid noqday waxaan is iri intaadan dhaliil iyo dhaleeceen ula dhicin nidaamka federaaliga ah ama maamul goboleedka bal dib u milicso taariikhda dalkeena waxaa halkaa iga soo baxay taariikh ahaan intuu gumaystuhu imaan habdhismeedka bulshada Soomaaliyeed uu ku dhisnaa nidaamka loo yaqaan dababka nidaamka dababka waa bulsho ay midayso deegaan xeer iyo xukun oo saddexda wadaaga lehna siyaasad istiraatiiji ah waxaa la sheegaa inay jireen taariikh ahaan 10 dab waxayna isula xiriiri jireen sida isu xigaan oo ay ood wadaag u yihiin buuga caanka ahaa ee loo yaqaan futuuxul xabasha oo ka sheekeynayo guulashii Axmed Gurey uu gaaray wuxuu sheegayaa dababka ama meelihii looga soo gurmaday dagaalkii uu Axmed Gurey hogaaminayay intuu socday guusha weynna ay ka ahaayeen nidaamka dababka nidaamkan ayaa gumaystuhu kala kulmay khasaare naf iyo maal ah ilaa ay u suura gashay hirgelinta habfakarka ah qaybi oo xukun uu gumaystuhu bulshada Soomaaliyeed u qeexay ama u qeybiyay qabiil ahaan dabcan dunida maanta iyo dunida awoowayaasheena isku mid ma ahan oo markaa ma jirin kheyraadka sida batroolka iyo wixii la mid ah laakiin dib u milicsiga taariikhda bulshadeena iyo nidaamka federaaliga aan maanta qaadanay waxaan ka baran karnaa in bulshada Soomaaliyeed meel walbo ay joogaan ayaan qalbigooda federaaleynin taana waxay inoo suura gelinaysaa inaan helno dhul federaaleysan iyo khuluub qaramaysan sida awoowayaasheena hore taariikhdana markaa eegto taa ayaa Axmed Gurey guushiisa u horseeday haddii aan taa ku guuldareysano waxaa nagu dhacaysa cawaaqib xumadii ku dhacday nidaamka federaaliga ah ee dalka Nigeria gunaanadka ama hadalka baaqiisa wuxuu yahay dhul federaaleysan iyo qalbi qaramaysan